بسم الله السلام عليكم ورحمة الله cashirkeenani waa midkii saddexaad ee barashada xirfadda graphic design-ka gaar ahaan barnaamijka Adobe Illustrator cashirkeena waxaynu ku baran doonaa qaababka aad u soo furan kartid project horay kuugu jiray waxaynu arkaynaa ilaa 5 qaab oo aad u soo furan karto document horay kuugu abuurnaa si aad wax ka bedel ugu samayso ama si aad wax ugu soo darto marka qaabka koowaad aynu samaynayna marka aynu barnaamijka sidaan u aragno si aynu u soo furano barnaamij horay noogu abuurnaa waxaynu samayn doonaa qaabka koowaad waa inaynu halkan shaashadan cashirkeennii hore waxaan kusoo baranay create new inuu yahay marka file cusub la abuurayo laakiinse marka mid hore u jiray aynu soo furayno waxaynu dhahaynaa open halkaas aynu ku dhufanaynaa marka wuxuu ina geyn doonaa computerkeena meeshuu wax kaga jiray markaas inaynu kasoo dooranno ayuu ina geyn doonaa kadib open baan soo oran doonaa marka hore aynu wada aragna dhowrka qaab kadib aynu arkaynaa marka qaabka koowaad waa inaad open dhahdo open markaynu dhahno talabaadka waxaynu u baahnayn hadaynu soo furano marka waa qaabkaas inoo soo furaya markaynu barnaamij hore inoogu jira kan hore inoogu abuurnaa wax ka bedel ayaynu ku samayno qaabkaas aynu soo furan karnaa mar kale qaabka kale oo arkayna marka qaabka labaad aynu barnaamij hore inoogu jira soo furan karnaa waxa weeye inaynu file aadno kadib aynu ku dhufano open file baynu tagaynaa kadib open baan ku dhufanaynaa isla halkii oo kale inoo soo saari doona aynu isagana kan dhahno oo kan soo saarno isagana marka waa kaas marka qaabkaas isaguna noo saaray waa qaabka labaad aynu file ama project hore inoogu jira marka aynu soo saarayno intaynu file aadno kadib halkaas open aynu dooranno way qaabka kale oo arkayno aan iska saarno labadanba qaabka saddexaad aan arkayno waxa weeye in halkan shaashadeena marka qaab horta aan u aadno marka hore si aan u fahanno halkaas ay calaamadda ama loogada ay ku qoran tahay barnaamijku ayaad ku dhufan doontaa marka waxaa kuu soo bixi doonta shaashadii oo madow oo noocan oo kale kuu soo baxaysa marka shaashadan markay kuu soo baxdo halkan baad double click ku siin doontaa mouse-ka marka isla wakaa waa ujeedaa meesha wax ka soo dooranayna wuu niganaya marka aan ku celiyo double click hadaynu siino meeshan canvas-ka oo bannaan oo waxba joogin wax taabi markaas oo kale waa inuusan ku furnayn marka qaabkan soo furitaankan noocan hal mar bas inoo shaqayn doono markaasna waa marka wax taaba hore inoo furnayn tusaale kale haddaynu hadda isticmaalno aan soo furno barnaamijkii hadda inoo furnaa kana soo furno marka wakaa waa ujeeda wuu inoo soo furay laakiin hadda tab maadaama inoo furan yahay canvas-ka nima bannaanaanayo haddana si walba meel double click ugu siino wax inoo shaqaynaya ma jirto marka qaabkaas aad soo furashada ee document hore kuugu jira aad soo furanaysaayna halkaa mar bas u shaqeeya qaabka marka uusan halkan canvas-ka waxba kuugu furnayn ay bannaan tahay ayaad double click ku siin doontaa qaabka loo aadayna waa naga sheegnay halka calaamadda loogada ay ku qoran tahay marka shaashadan hore revisionska iyo waxyaabihii dhawaanahan aad samaysay ay kaaga soo muuqanayaan aad aragtid ayaa halkaas ay loogada ku qoran tahay ayaad click ku siin doontaa kadib shaashad noocan oo kale kuu soo baxaysa oo bannaan shaashadaasaad marka double click siin kadib halkaasaad kusoo dooran doontaa marka waa qaabkaas barnaamij hore u jira u soo furanaysa saddexaadna qaabkaas keliya qaabkaas ayuu u shaqeeyaa isaguna waa halkaa marbis sidaynu hore usoo sheegnay qaabka afraad oo kale oo barnaamij hore inoogu jira aan usoo furan karno waxaa weeye in aynu tagno file kadib aynu place dhahno halkaa placed aysan ku dhufano laakiinse qaabkan waxoogaa marka hore inaad fahantay isku day barnaamijka markaad qaabkan aad isticmaalayso kan kuu furan buu unbaad ku dul furi kartaa isagu marka tab cusub oo bannaan ma qaadan doono marka haddaynu soo furno hadda mid cusub tusaale kale aynu dhahno place kadib kanaan soo furanaynaa marka kan wuxuu ku awoodsinaya marka isagu click kuma sii oranaya isla markaaba sida photoshopki oo kale adigaa laga rabaa marka inaad jiido oo waxaad samayn doontaa kadib intaad saa u qabato halkaas ayaad intaad u baahantaa aad ku sii deyn doontaa halkaas intaad intaad rabto saasaad u sii deyn markaas marka documentigana horey buu jiray oo hadda waa sawir laakiinse kan unbaa ina loogu dul furi doonaa kan hadda inoo furnaa waa qaab aad usoo furan kartid wax horey kuugu jiray oo kuugu abuurnaa laakiinse taab cusub isagoo aan qaadanayna kii markaa kuu furnaa lagu kor furi doono marka qaabkaasina waa qaabka afraad aynu arkayna barnaamij horey kuugu jiray aad usoo furan kartid qaabka kale oo aan arkayno oo shanaad waxa weeye waa inaad isticmaasho shortcut mar walba waa naga sheegnay wax walba ood samaynaysid shortcut buu yeelan doonaa marka shortcutkaasna inaad aad isticmaalkiisa aad gacantaada aad u barto ama ula qabsato ayaa lagaa rabaa haddaad u baahan tahay inaad noqoto qof graphic designer marka halkan waa ujeedaa shortcutka waxaa weeye control o haddaynu control o dhahno iyadana sidoo kale isla shaashadeennii wayna geyn doonaa wax cusub ayaynu markaas aynu soo dooran doonaa hadaynu marka waa kan haddana isaguna wuxuu qaadan doonaa tab cusub uu kale qaadan doonaa qaabkan openka kii hore laakiin isku dul furi doona kaas laakiin kii hore uu dul furay place qaabkaas inuu soo fahnay qaabkan kale isaguna shortcut kale isticmaalaya isagu shaashadii uu gubin tab cusub waa dooran doontaa
hal qaab oo kale waxaan ku daraynaa aynu horey u soo arki jirnay qaabkaas kale waxa weeye isaguna inaan isticmaalno drag and drop meel ka mid ah shashadaada ayaa tegi doontaa kadib waxaad soo jiidi doontaa sawirka marka aad u baahan tahay inaad meesha keento marka tusaale kale haddaynu sawirkan u baahna inaan soo qaadno waxaynu kusoo duljiidaynaa kan marka drag and drop kan isagu haddaad kusii duldayso hadda kan buu qarin doonaa meesha yaallo oo waa lagu dulfan doonaa marka adigu waxaad u baahan tahay halkan projectigan kuu furnaa ee hore inuu aad ku dulfurto mise taab cusub inuu kuu aada rabtaa haddaad adigaa markaa kala dooranaysid haddaad rabto inaad halkan kusii dayso marka haddaad saa iskaga sii dayso halkan buu isku dulfuri doonaa sawirkii hadda waa ujeedaa saaid buu soo weyn yahay xayraan yarayno marka waa qaabkan oo drag and drop haddaad xaggan kusii duldayso sawirkaagii markaa kuu furnaa baa lagu dulfuri doonaa isaga haddii marka aad u baahan tahay inuu taab cusub kuu qaato kan aad drag and drop kusoo gelinaysahay waxaad samayn doontaa hadda sidaynu samaynayna markaad kusoo jirto drag markaad dhahdo halkan aad kusii dayna marka meesha kore ee taabiska halkaa ku dulfur markaad halkaa ku dulfurto isagaa taab cusub qaadan doona marka hadda marka waxaa ujeedaa isagii baa hadda taab cusub haystaa marka dhowrkaa qaab baynu aragnay project hore kuugu jiray aad usoo loo furan kartid si aad wax kabedel ugu samayso ama wada ugu soo darto cashirkeena marka aynu ku baranaynay qaabka loo soo furan karo barnaamijyii hore kuugu jiray halkaas aynu ku ageenaynaa khayr badan baa idin rajaynaya subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk